sanadkii 2017 magaalada Ingiriiska ku taala ee Manchester waxa laga qabtay laba ciyaal oo dadka cabsi weyn ku abuuray. labada ciyaal si caadi ay iskaga socdeen wadooyinka, laakiin waxa dadka baqa galiyay indhahooda madmadow. dadku waxay waceen booliska magaalada, booliskuna way qaateen ciyaalkii, laakiin markii la isiri xabsiga geeyay waxa dhacay wax lama filaan oo la yaab leh. soo dhawaada asxaabay, maanta waxa muuqaalkan kaga hadli doonaa sheeko cabsi oo dadka ka yaabisay. sheekadan lama oran karo, balse waa sheeko dhaaftay, sababtoo ah waxa sheekadan xaqiiqadeeda indhaha ka qaaday dad kala duwan oo aynu soo qaadan doono. xitaa waxaynu soo gudbin doonaa muuqaalo iyo sawiro u daliila sheekadan. mawduuca aynu maanta ka hadlaynaa waa dhacdadii ciyaalkii indhaha madmadooba. ugu horreyntii aynu isla ogaano cidda ay yihiin ciyaalka indhaha madoobi. ciyaalka indhaha madow sida caadiga ah da'doodu waxay u dhaxaysaa 5 ilaa 15 sano. muuqaal ahaan waxay shabahaan rooxaan oo kale, badankana waxay ku imanayaan markaad kaligaa tahay. marka ugu horreysa aad aragto ciyaalka indhaha madow waxaad dareemi doontaa dareen gaar ah. waxa sabab la'aan kaa muuqan doona daal nafeed iyo mid jireed oo badan. badanka sheekooyinka dadka la kulmay ay soo wariyaan waxay leeyihiin ciyaalkani marka ugu horreysay kula kulmaan waxay ku weydiisan doonaan waxyaabo kala duwan, laakiin inta badan waxay kaa dalbanayaan inay gurigaaga soo galaan. ciyaalku marka hore si miyir qaba ayay albaabka kugu garaacayaan, kadibna markuu qofku ka furo wuxuu la kulmayaa cabsi badan muuqaalkooda awgood. laakiin ciyaalkani marka hore si aan looga nixin waxay indhahooda ku qariyaan okiyaale ama muraayadaha cadceedda. kadib markuu qofku ka furo ciyaalka albaabka waxay weydiisanayaan inay gudaha guriga u galaan, sababtoo ah ciyaalkani dhaqan uma laha inay guryaha iska galaan idan la'aan. yacni marka hore waa inaad albaabka ka furtaa kadibna aad soo dhaweysaa. sida caadiga ah marka hore ciyaalkani waxay muuqaalkooda u soo eekeysiyaan kuwa duruufaysan oo muruga hayso, si qofka arkaa ula hadlo oo gurigiisa u geliyo. maryaha ay xidhan yihiin sida caadiga ah waa maryaha hurdada ee lagu seexdo. markay ciyaalku guriga qofka gudaha u galaan waxay iska bixinayaan okiyaalaha waxaanay qofka tusayaan indhahooda. markaad aragtid indhahooda sheekooyinka laga soo wariyey waxay leeyihiin masiibo ayaa kugu dhacaysa. waxaa suuragal ah inaad shil baabuur gashid, inaad si kadisa u dhimatid ama inaad xanuunsatid. musiibaduna way ku kala duwan tahay dadka. hordhacani waa soo koobidda waxa lagu qeexay ciyaalka indhaha madow. haddaynu isla fahnay ciyaalkani waxay yihiin, aynu u gudagalnaa bar ka mida sheekooyinka iyo daliilada caddaynaya jiritaanka ciyaalka indhaha madow. qisada koobaad aynu ku bilaabaynaa waa qiso xaqiiqo ah oo sanadkii 2017 ka dhacday magaalada Manchester ee Ingiriiska ku taala. sidaynu muuqaalka bilowgiisa ku xusnay waxa jiray laba ciyaal oo indho madmadow oo la arkay iyagoo maraya wadooyinka magaalada Manchester. dadku markay arkeen waxay ka baqeen indhahooda waxaanay la xiriireen una sheegeen booliska magaalada. markay askartii qabteen sida caadiga ah waxay u qaadeen dhinaca iyo saldhigga si ay u baaraan, laakiin intii saldhigga lagu sii waday waxa dhacay wax askartii ka yaabiyay. ciyaalkii intii daaqadihii xidhnaa ee gaadhiga iska fureen ayay degeen, kadibna way yaaceen. askartii markay istiri eryadana way waayeen meel ay ka baxeen. dhacdadani markay dhacaysay waxaa laga duubay codka waxaan ku arkay YouTube-ka, waan idin maqashin doonaa, laakiin ma kala caddayn karo inuu codkani run yahay iyo inaanu ahayn. codka waxaa xaqiiqo ah inaysan ku jirin cod ciyaal, balse tani waxay ahayd dhacdada koowaad ee aynu ka soo qaadanay dhacdooyinka laga diiwaangeliyay ciyaalka indhaha madmadow. sheekada labaad waa sheeko gaaban, lama odhan karo waa sheeko balse waa muuqaal. maalin maalmaha ka mida telefishin ayaa baahiyey shil gaadhi oo ka dhacay gobolka Pennsylvania ee waddanka Maraykanka. kameramaanka iyo waryuhuba waxay ku mashquulsanaayeen duubidda iyo baahinta warka, maadaama warka si toosa loo daawanayay. laakiin dadkii warka daawanayay waxay arkeen qof ay la yaabeen oo ka dambeeya waryaha warka tabinaya. bal aynu wada daawanno muuqaalka.
sidaad ka aragteen muuqaalka intuu wariyuhu hadlayay waxa gadaashiisa ka soo muuqday qof la hubo inuu indhamadow yahay ma kala cadda inuu qofkani ciyaal yahay iyo inaanu ahayn balse waxay dadka goobtan degani isku raaceen inuu qofkani yahay ciyaalka indhaha madow waxaanay ku sababeeyeen inay goobtani tahay meel cidlo ah oo cagtu ku yar tahay iyo inay goobtan tiraba dhowr jeer ku arkeen ciyaalka indhaha madow waxaan eegay kommentiyada laga bixiyay dhacdadan waxa dhici karta inay run sheegayaan waxaana dhici karta inay been tahay qisada saddexaad waa qiso ku qoran application-ka Reddit oo ka sheekeynaysa gabadh lagu magacaabo Ashley waxay ku noolayd guri dabaq oo horeere kala duwan wada degan yihiin oo ku yaala magaalada New York guryaha dabaqyada ahna marka la garaacayo albaabka waa la isku khaldaa oo lama kala garanayo albaabka la garaacayo Ashley oo sheekadan soo qortay ayaa sheegtay inay maalin maqashay albaabka gurigeeda oo la garaacayo laakiin markay kacday ay soo egtay waxay ogaatay inuu yahay albaabka jaarkeeda ee guriga ku xiga markii Ashley albaabka furaysay ay islahayd hubso in la garaacayo waxay aragtay ciyaal indhamadow oo hortaagan albaabka jaarkeeda isla markiiba Ashley waxay xidhay albaabkii laakiin sanqadha furdii ay albaabka furtay ay ciyaalkii maqleen waxaanay soo jalleceen dhinaca albaabkii Ashley waxaanay soo hor istaageen gurigii waxaanay weydiisteen Ashley inay u ogolaato inay gudaha guriga u soo galaan Ashley way aamustay waanay jawaabi kari weyday baqdin daraadeed kadibna mid ka mid ciyaalkii ayaa isagoo codka kor u qaadaya ku yidhi waan ognahay inaad albaabka daba taagan tahay ee fur albaabka Ashley iyadoo dhanna ka baqanaysa ayay ka egtay ciyaalkii daloolka albaabka waxaanay ogaatay inay dhammaan ciyaalkooda indhamadow yihiin kadib naxdin iyadoon iskantarooli kareen ayay albaabkii gacanta ku qabatay waxaanay istiri fur laakiin intaanay wada furin ayay isqabatay waxaanay fahantay in hadday furto ay khatar wajahi doonto Ashley albaabkii way xidhay waana iskaga hor dhaqaaqday waxaanay hoosta ka soo xidhatay qolkeedii markay qabatay waxay isku dirqiday inay mowduucan isilowsiiso balse 10 daqiiqo kadib Ashley waxay ku laabatay albaabkii iyadoo isla eeg inay ciyaalkii wali taagan yihiin iyo in kale laakiin nasiib wanaag ciyaalkii way tageen waana weeday isla maalinka dhacdada ku dhacday waxay furtay laptopkeeda waxaana internetka ka raadisay mowduuca ciyaalka indhaha madmadow waxaana netka ku dhex aragtay kumanaan dad oo arintani ku dhacday kana sheekeynaya waxaanay ogaatay inaanay iyadoo kaliya albaabka ku soo garaacin ciyaalka indhaha madoobi wax laga yaabaa inaad yara cabsateen hase yeeshee aynu milicsano bar ka mid aragtiyaha ama sharaxaadda cilmiyeed ee laga yidhi ciyaalkan indhaha madow marka hore waxa suuragal ah in ciyaalkan loo soo xidhay midabada indhuhu fasiraad sidaas uma baahna waxa laga yaabaa inaad baraha bulshada qof xidhan ku aragteen waxna lagu iibiyaa dukaamada online-ka sida Amazon hadalhayntan la leeyahay ciyaalkan waxa loo soo xidhay midabada indhaha ayaa aad u jirtay balse waxa jira dad badan oo beeniyay warka sababtoo ah waxay daliishadeen inaysan ciyaalkani samayn karin ficilada iyo wejiga cabsida ah siiba muddo dheer aanay muujin karayn waxa jira dadka qaar sheegay inay suurtagal tahay inay ciyaalkani sixir yihiin ama shaydaan yihiin amaba aanay jirinba run ahaantii Ilaahay ayaa og si kastaba ha ahaatee halkan ayuu muuqaalku ku eegyahay waxaan rajaynayaa inaad mowduucan ka hesheen haddaad ka sheehay ilaaw inaad like garaysid muuqaalka subscribe na taabatid waad mahadsantihiin waynooyo muuqaalka kan xiga